السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد الصوماليات. waxaan aad ugu faraxsanahay in ma garanaysa dadka Soomaaliyeed ee paying attention xaaladda wadankooda ka socoto sababtoo ah halkaas dal un baa haysanaa dowladda Soomaaliya maanta waxaa la dhahay nabar afilaysay naxdin ma leh sababtoo ah koonfur galbeed baa xiriirka u jirta dowladda Soomaaliya taas nasiib darro aad u weyn waaye madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waqti aad u dheer buu wadankan madaxweyne ka ahaa 4 sano oo 2016kii ilaa iyo 2012kii ahayd kasoo bilow hadda oo mar kale la doortay 70 jir experience iyo waayo aragnimo wax walba haystu ahaa in maanta maamul goboleedkii Jubbaland Puntland koonfur galbeed hadda ka cararto oo xiriirka u jirto dastuurkii dalka oo lagu heshiinin uu meel luuqa intuu iskala galay wax walba lagu soo qoray maanta ummad ku heshiisan jirin wadankii oo waqti aad u yar 2 bil nidaamka dowladda iyo mandate-ku dhiman yahay in meesha la soo gaaro aad iyo aad ay rajo xumo u tahay madaxweyne Xasan Sheekh anigu waa ninaan ku aqaano ahaa inuu ma garanaysa tanaasulo oo dadka uu ma garanaysa ka fikradu soo dhaweeyo hadda ka hor waxaan xasuustaa qiso Washington DC aanu joogo naag oo aad ma garanaysa madaxweynayaal badan oo Mareykan la soo shaqeysay oo ogeyd in aniga madaxweyne Farmaajo aad iskugu dhaweyn aan xamar tagi jiray la kulmi jiray ba islaantaana waxay la soo shaqeysay Joe Biden Obama iyo Bill Clinton saddex madaxweyne oo dimuqraadiga marka waxa aad uga yaabay waxay u tiri saaxiibkaaga hore kan hadda la doortaa ka fiican iyadoo la jeeday madaxweyne Xasan Sheekh marka madaxweyne Xasan Sheekh nin ma garanaysa rajo badan ay dadka ka muujinayaan oo tanaasulkiisii iyo waayo aragnimadiisa experience-giisa Soomaaliya wax kusoo korinayso u eka sababtoo ah adduunka dalka Soomaaliya wadan soo kabanayo oo support u baahan buu naga aaminsanaa laakiin madaxweyne walba iyo maamul goboleedka hadday qoorta isku galaan niyad jab badanaa dadkii ay la kulmeen hadday noqoto caalamka iyo hadday noqoto Soomaalida gudaheedaba marka madaxweynaha Soomaaliya hadda aan maxaan kula talin lahaa inuu doorashada dhexda iska soo dhigo wadankan dadkan baabaasan abaaraha colaadaha iyo diloodeen inuu oga sii darin uu wadankan taladiisa dhexda soo dhigo dadkaana uu dhaho doorasho gal ilaahay shalay madaxweyne ka dhigay baarlamaanka codku siiyo wuu joogaa one man buu dadkan way gaari doonaan haddii al-shabaabka laga adkaado haddii maamul goboleedyada markaas dowlad quman oo awood leh oo lacagteedii iyo maamulkeedii systemkeedii haysato